عقاشي وحجرتك قبل كساحل أي شهادة شرف وحيكما موسين قدوميها قبل كاسي ساحل وربحين توركان وحينوسو دري قدر حيفو عقاشة قبل كساحل يحلبانا كتير سنقولها الديبان كدقمة بربرة أي شهادة شرف قدونسية برصابك قبل كساحل إنجنير أحمد عثمان حسن iyagoo ku amaanay doorka shariifka uu ka qaatay taniyeyntii uu ku sugnaa gobolka saaxil runtii waxaan ka marakacayaa Axmed inuu yahay gudoomiye sil oo saacad kasta iyo goob kasta oo uga baahatay baad helayso markii hore arintan raashinada oo kale 2,000 oo qoys oo kaliya qaadan jiray oo ilaa 12 tuulaha warqadii dalabka hay'adda hay'adda WFP uu gudbiyay ay ku suurta gashay in 2,500 loo kordhiyo tii horena la jeediyo أنا مركو أريد أن نشيء عشان نحن صورة قلي ما ينبغي تيورا ودانك إسكاب بعنا سيرنتو صورة قشيل هاي وفدي الله وكاستري كدوم يواك هاجم محنقينا. وجد كاين صحافة ما تانو قبلني هدان هاي كلها دقن كه وحوي حفلة أن كل بدوسين إنه كدوميها قبل كه شهادة شرفات كاسو أن كل بدوسين إنه حول بريها بسوي سعتي oo tuulooyinka degmada hayo gobolka kamida dadkii barakacayaasha ay abaartu ay saameysay raashin loo qaybinay raashinka waxa bixinaysa WFP shahada sharafta gudoomiyaha gobolka la gudoonsiyay cuqaasha gobolka qaar kamida ay gudoonsiyeen gaar ahaan uu ku saxan yahay Chief Aqil Xasan Shaqale waxayna muujinaysaa runtii isku xidhnaanta maamulka gobolka iyo degmada iyo cuqaasha iyo deegaanada ay si isku xidhan yihiin waxa lagu xusay gudoomiyaha sida sharafta leh uga qayb qaatay maamulka guud ahaan gobolka gaar ahaanna shaqadii ugu dambeysay iminka oo ahayd qaybinta raashinada gobolka soo gaaray xafladda kulli si fudud dhowbaan anigu uga soo warhelay iyo wararkeeda xasi aan aqoon u leeyahay deebada saabka gobolka iyo maamulka xogayaha iyo xildhibaanada iyo cuqaasha gobolka yaan tan yaan la soconay iyaga la socda dhaqankooda iyo waxqabadkooda aad baan uga mahad celinaynaa warasaabka gobolka saaxil ayaa ka gudoomay shahada sharaftan ugana mahadnaqay dhiirigelinta ay ku siinayaan shaqada uu hayo runtii marka hore aad baan idinku mahad celinayaa sida sharafta leh ee maamuusta leh ee aad xafiiskayga igu timaadeen isla markaana shaqadaydii caadiga ahayd ee marka horeba aanu idmanaa aad garateen haddana inaad shahada sharaf igu siisaan shaqadani waa shaqadii marka horeba inaan qabto aan maxaan ku dhaw idmanaa inaan bulshada ugu adeego haddaa saa idinkiina maxaan ku dhahdaa igu tixgeliseen aad baad ugu mahadsantihiin runtii hawshaa waxa weeye aynu soo sheegnay ugu dambeysay imka laga hadlayo oo ah raashimada waxaa laga yaabaa raashinkii marka hore la qaybinaya waqti buu lahaa waqtigu markuu dhammaado waxaa la rabaa in haddana mar dambe la dalbado la yidhaahdo noo kordhiya waa Khadar Maxamuud Axmed Khadar Xefo telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalo xeebada Berbera